بسم الله halkan waxay la fadhiyaa maanta oo taariikhdiis 31 bishii 8aad Dr. Maxamed Cusmaan Fadal oo aan ka wareysan doono arrimo dhowr ah su'aasha ugu horeysa ee aan ku weydiinayo Dr. waxa weeyaan balna taariikh yar oo kooban naga siiso shaqadaadii ugu horeysay dawladda aad shaqo dawladeed aad qabato xiliyadii aad samafalka ka shaqeynaysay markii aad siyaasadda ku biirtay bal hadda inaad xog yar oo kooban naga siiso بسم الله الرحمن الرحيم shaqadayda aad ugu horeysay waxay ahayd dawladii hore ee baabaaday siyaad barre markii hore waxa la train gareeyay u tababartay macallin ka bacdina waqti yar markan macallimadii ku shaqeeyay markiiba group la diray oo Jarmalka loo diray ayaan kamid ahaa 5 sanadood baan Jarmalka ku maqnaa macallimada waxaan ku soo qaatay digriga ugu horeeya ee taariikhda iyo luqadaha dabeetana 5 sanadood baan ku maqnaa Jarmalka 5 sanadood doctorate baan soo sameeyay shahaado PhD-da waxaan soo noqday 7 waxaan tagay 77 waxaan soo noqday 82 markii aan soo noqday shaqadii ugu horeysay aan qabtay waxay ahayd inaan u noqdo la taliye wasiirka arrimaha gudaha oo Axmed Jaamac Jingale ahaa markaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose loo oran jiray muddan la taliyaha wasiirka ahaa kadibna waan ka wareegay waxaan u wareegay hay'ad jaamacadda institute la yiraahdo Sidam oo institute-ka ugu qiimaha badan la ahaa Soomaalida burburtay oo caalamka oo dhami caawin jiray marka mashruuc baan si gaar ah uga qayb galay MBA programkan la yiraahdo master's degree-ga lagu bixiyo oo California State University ay bixiso Mareykankuna lacag badan siiyo kaasaan ka noqday lecturer dad badan oo imika dhulkeena iyo dibadda joogana معلم بانو soo noqday reer Somaliland kadib in yar kadibna wasaaradda lacagta loo oran jiray cusub oo la dhisayo ayaan wax ka dhisay Abdullaahi Warsame loo oran jiray ayaan la dhisay shaqaalaha iyo tababarka iyo dibad ma wax noqday human resource development officer-ka dadka shaqaalaha qaadanaya wasaaradda cusub shaqaalaha qaadanay far badan oo aqoon-yahana wasaaradda lacagta loo oran jiray qaybta lacagta lagu soo saaro wasaaradda maaliyadda laba loo qaybiyay mid wixii isticmaal expenditure la yiraahdo iyo mid revenue marka revenue-ga ay ahayd dad badan oo shaqaalaha tababarnay maanta Somaliland dadkii asaaska u dhigay hay'adda maaliyadda maanta ilaa maanta wasaaradda ku shaqeysay iyo kuwa ugu qiimo badan laba waxay ahayn dadkii bariga aan anigu qaatay aan tababaray markaan ka soo gudubnay waa la qaxay Canada tagay oo ka soo noqday samafalkan u shaqeeyay dadkii shakhsiyaadkii ugu horeeyay soo noqday baan ahaa aan soo noqday 29 dalka iyadoo sanad lagu jiro intaana dalka waan joogay shirkii boorama ka qayb galay samafalka hay'adaha samafalka ka qayb galay shaqada dawladeed badan markaa baan qabanin laakiin hay'adaha samafalka iyo nabadeynta iyo research cilmi baarista akademiyada dhaqanka ragii asaasay baan kamid ahaa kadib cigaal baan noqday wasiir aniga oo akademiyada jooga oo research coordinator-ka ayuu iga soo qaatay wasiirka qorsheynta ayuu magacaabay wasiirka qorsheynta markaa sanad iyo bar meelahaas aan joogay أنا مركز إسكاي وقرصي سؤالها لبعضهم كويتين يا حويان مركي كوجو رئيسية تحلك وسير كقبطي حكوا حسوس بدنا حلك سواء حنفلا يوم حلكي كوجو ريها مركب حكوا حسوس بدنا أما أهاوح لجنحه أما أهاوح لجو فرحه أنتي هالحلك هايسي horta waxa ugu iigu xusuusta badan waxa weeyaan waxaan ogaaday marka hore dawlad baynu dhisaynay yar oo ordina oo wasaarado leh oo baarlamaankeedii leh wax walba leh aniguna wasaaradda qorsheynta joogaa wasaaradda qorsheyntu waxay la macaamishaa caalamkan ina caawiya marka hore dawladda meesha aan ugu imid dawlad aad u dhaqaale yar ayay ahayd oo aan budget maartay iska daa wax la xado oo wax lagu kala maamulo aan lahayn sida ay tahay waxa ay ku yaab badan leeyahay inay tan maanta oo malaayiin la isticmaalo inay ka taye iyo hadii beed maayo roonayd waxa uu aan xasuusto oo wixii aan kaga tagay kagana shaqeeyay waxa ugu muhiimsan waxay ahayd mashruuc weyn oo aan aad uga soo shaqeynay oo berbere iyo burco berberena lagu dhisayo
waana wixii markii dambe aan u risaan garay awadeedii berberina lagu dhisay local government-keeda oo $1,000,000 la gelinayo burcana $600,000 la gelinayo ceelal loo dhisayo ayaa inta madaxweyne loo bahlageliyay lagu yiri cid baa cunta iyo Kenyan baa cuna iyo siyaasiyan bay adiga wax ku yeelaysaa iyo marka taa weeyaan marka taasaan madaxweynihii runtii iskaga hornimi isaguna wuxuu damcay inuu cancel gareeyo oo de waa loo bahalgeliyo waxa lagu yiri gaalo iyo dad iskaashaday oo adiga kugu cadowa aniguna waxaan arkay inay runtii bahalgelin tahay labada meeloodba ay u baahan yihiin oo berberina u baahnayd burcana u baahnayd adigu markii dambe markaan isku soo xooriyo meesha waxba dadku hadiga doosaasha isweydiiyaan maxaad uga tagtay waxaan uga tagay waqtiga gaaban wixii ajenda ahaa ee igu muhiimsanaan marka islaha qabo ama xagga gobolka aan ka qabto ama xagga reerka aan ka qabto ama xagga dawladda aan ka qabtay waan fuliyay wixii marka kan oo ugu muhiimsanaana markaan aan xilkeedii aan fulin kari weynay aan iskaga hornimay madaxweynihii intaan go'aan qaatay oo sii daayay oo mashruuc fulay oo soo celiyay cidii ka shaqeynaysay oo aan burca iyo berberaba u sii daayay mashruuc $1,600,000 ahaa ayaan aniguna idhi madaxweyne salaamu calaykum waayahay su-aasha kalaan ku weydiinaya waxay tahay adoo aad iyo aad u mahadsan maamulka dawladda waxa ka faa'iideysta dadka maskax ahaan caafimaadka qaba kuwa xuskooda waayay wax qorshe ah oo muuqda kuma leh ma kula tahay in mas'uuliyadda ummaddu fahamto in kuwaasi ku leeyihiin daryeelka koowaad si weyn baan ku oranayaa qofka muwaadinka ah ee masiibada ilaahay ku timi xiskooda waayay xaq wuxuu ugu leeyahay qarankan iyo dawladdiisuba inay damaano qaato oo aanay dayacay imika ku jiraan reerkoodu la kaca ku faye ee la daala dhacayo aanay ahaanina dawladdu xil gaara iska saarto inay dadka dawladnimada waxa loo dhistaa waxa xoog leh iyo waxa aqoonta leh iyo waxa wax kala boobi karaya in wax loo qaybiyo cadaalad loo sameeyo waxa aan waxba qabsan karayn ee daciifka ana in damaanadooda la qaado iyo mas'uuliyaadkooda oo noloshooda la damaano qaado haabaan leeyahay waxaan qabaa dawladda wadani inay marka ugu horeysa ka bilaabayso wax allaala wixii sharci ee dadka lagu damaanad qaadiyo mas'uuliyaadka dawladda cadeynaya halka imika ay qoysku iyo iyagoo qawan u ka cararaan dawladdu marka hore wax allaala wixii shuruuc waxa ay cadeynayeen inay samayso wixii dhaqaale ay ugu talagelayso inay ugu talagasho waxay dalka xaq ugu leeyihiin haday tahay meel lagu xanaaneeyo haday tahay dawadoodii haday tahay tababarkooda ay nolosha had qaar badan iyagoo xad la abay kaga qayb galaan inay kaga qayb galaan ayaan qabaa sida imika yihiin si maaha sidaasan qabaha su'aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay mudane wixii dhul iyo dhismo ahaa ee dawladdu lahayd way socdeen inta badan waxa haray sidee loo badbaadin karaa wixii lumayna sidee loo soo celin karaa sharci baynu inagu waxa ugu muhiimsanaya aynu dawladda wadani ay doonaysaa dalkan inay ku dhaqdo waa sharci waa rule of law guna wixii xaq darro lagu lunsadayna de sharci baa haya wixii xaq ku baxay oo sharci ku baxayna sharci bay leeyihiin wixii aan sharci ku bixin dawladdu waxay u taalaa marka nidaamka dawliga ah ee rule of law ga ah inaan cidina xaq darro iyo sharci darro wax kula maqnaanin dawladda wadani anigu مثلا aan imika doorashadeeda ku jirno annagu waxa ku qoran programka yaga wixii haray waa la badbaadinaya dawladdaaba leh laakiin inaanu inta iyo boqolaabkood dib u dhisno oo wax ummadda ka dhaxeeya waxaan waa wax ummadda ka dhaxeeya waxna gaar baynu kala leenahay dal noqon mayna hadii wax walba gaar loo kala yeesho dawladnimadu waxay ku jirtaa wixii la wada leeyahay baahida loo qabo guryahan baahi baa loo qabay dhismaha baahi baa loo qabay xafiisyada baahi baa loo qabaa wadooyinka iyo airportada iyo madaarada iyo meel walba baahi baa loo qabaa baahida wixii private bay ahaan doonaan wixii strategic ee qaran security-giisa iyo horumarkiisa u baahan yahayna waan damaano qaadaynaa inaanu maartay dawladda xaqeedii ay lahayd ay dowrkeedii ka qaadato
wixii dadku u baahan yahay ama ahaadeen guryaha loo dhisiyo dadka shaqaalaha hadday ciidanka tahay iyo hadday macallimiinta tahay iyo hadday dadka danyarta tahaybana waa dhisaynaa qaar kale aan dhisaynaa waayahay waxaan u gudbayaa su'aal kale oo ah dalkeena waxa ka jira waad aragtay oo gaadiidka meel ay maraan ma haystaan macnaha wadooyinku way jajabayeen maaha laakiin wadooyin gaadiidka ku filan ma jiraan oo way yar yihiin waxa meel walba ka batay dhismihii taa waxa ka sii daran ilaa 60kii oo aynu xornimada qaadanay Soomaaliland oo ilaa 91kii jirtay qashin saar male wadankeenu guri waliba qashinka gudihiisa mas'uuliyihiisa ka baxaa isla guriga hoostiisa ma ku jiraan ma jirto meel dhexe oo qashin macna qashin qaad guuda oo qaada ma jirto ilaa qofka aad weydiisana wuxuu kuna ictiraaf ma haysano dhaqaale ma haysano keer ma haysano waa 60kiina hadda ogow waa sidaynu calanka u qaadanay qashinka laga qaada magaalada isla magaalada koonayaasheeda lagu shubaa meelaha jagooyinka ah iyo waliba dadku leeyahay ka sii daran waxa ka sii yaab badan meesha xoolaha lagu qalo dhiiga iyo uuska laga qaado waxa lagu shubaa jagooyinka ay dadku leeyihiin magaalada koonayaasheeda maxaa taas sidee wax looga qaban karaa baad malaynaysaa waxa dawladda ay u samaystaan iyo xilka la saaraabada wax weeyaan waa adeega in loo adeego dadka noloshiisa iyo caafimaadkiisa iyo hadii bayd maayo korinta dhaqaalaha waan kala saaraya wadooyinka markii hore ka bilowday wadooyinka horta markii hore waxa inoogu muhiimsan qorshe qaran road network oo qaran ah inaynu markii hore qorshihiisa halkan dhigano qorshahaas markuu halka qaranka oo dhan wadooyinkiisa oo networkiisa oo inoo qorshaysan inaynu halkan dhigano dibadna inaynu kala horeysiisano teebaa dhaqaalaha u laga maarmaana teebaa arrimaha bulshada u laga maarmaana teebaynu horeysiina inteebaynu isku xidhnaa qaar waa kuwa dalka gobolada isaga gudba qaar waa kuwa magaalooyinka gudahooda qaar local government ay martan shaqadiisa la siin karaa qaar central government ka shaqadiisa qaadan kara inagu marka hore horta wixii weyn qorsheynayna qorshe dawladu ay iska dhaxlaan oo lagu daro aynu marka hore sameynaa road network waynu sameynaa sida programka ay ku qoran marka dambana waxaynu sameynaynaa kuwa dhaqaalaha halbowlaha oo ah dhaqaalaheena qorshihiisa مثلا aad ka fikir kartaa wax weeyaan xeeb dheer baynu leenahay dhul dambana waynu leenahay gobollo kala fidsanna waynu leenahay waxa laga yaabaa wax ugu muhiimsani si xeebteenaasuna ay u korto haddii bayd maayo dhaqaalaheena guduuna u koro xeebta iyo guduhu isku xidhmaan horta xeebta wada yaroo laba wado dhuuban baa imka laga baxay wadada hadii berberun baa laga baxaa inaynu dalka hadday lughayo tahay iyo hadday zeylac tahay iyo hadday tahay karin iyo hadday xiis iyo mayr tahay iyo hadday laas qore tahayba wadooyin dhulka wax lagu dhaqay xoolaha lagu dhaqay dadku wax soo saarku joogaan ku xidhma inaynu sameeyno wadadan dhexda martay ee hadii bayd maayo laamiga ah ee dhulka inta dhaxaynoo martay magaalooyinka wada dul samaysmeen in wadooyin ka baxo miyi xagga hawdka iyo koonfurta iyo waqooyiga ugu baxana la sameeyo wadadu magaalada kaliya maaha wadooyinka dhaqaalo horta waa kuwa magaalooyinka gudahooda waxa iska kaashanaya local government iyo dawladda dhexe waxa laalo wixii qorsheyn guud iyo isku xidhka guud iyo dhaqaalo sameyn dawladda dhexe mas'uuliyad saaranta laakiin fulinta dawladda meel walba xilku wuxuu fuulaya wadada wadooyinka kuwa isaga gudba gobolada dawladda dhexe wuxuu fuulaya dawladdaas lagu la xisaabtamaya lacagta ka soo baxda Hargeysa in wadooyinkeeda lagu sameeyo ee aan hadii bayd maayo dana gaara iyo si gaar loo sameeysan marka waxaan leenahay wadooyinku waa sidaas weyn oo muhiim xagga qashin qubka iyo drainage-ka iyo magaalooyinka habkan magaalada dhaqaale badan buu iyo aqli badan buu u baahan yahay inaynu dhaqaale yarnahay waa run inaynaan maanta drainage Hargeysa intaynu godad ka wada jeexno aynaan maaragtay deeqa adduunka la mid ah la sameeyay inaynaan saacadan daqiiqad ku sameey kareen iyadoo ku dheedo waxay u baahantay markaa qorsheyn town planning kaamila oo magaalada Hargeysa 30 sanadood soo socda halkay tagaysaa maxay u baahanaysaa fidinteeda wadooyinkeeda drainage-keeda qashin qubkeeda
horta marka hore kaa inaynu meel dhigno oo magaalo wal oo aynu leenahayba aynu kaa dhigno marka wixii ka dambeeya waxa weeyaan inaynu siday wax u kala horeeyaan qashinka imika meel walba daadsanee dadku daadinayaan inaynu nidaam u samayno inaynu waxaan meelaha lagu gubo iyo meelaha lagu guro oo qorshaysan inaynu samayno wacyigelin xoog miisaan u leh dadkeena inaynu siino mar haddii dadkan isu soo ururona magaalooyin ku noolaadeen inaanay qof waliba inuu meeshu doono ama guriga ku haysan ama haddii bidmaayo iska soo xaadhin inaynu ka korino iyadoo qudheeda waxaa iska kaashanaya dowladda dhexe iyo dowladda local government-ka ah ee lacagta dadka u dhow ee mas-uuliyaddeeda ay tahay inay dadka serve garayso oo ay dadku haddii bidmaayo la xisaabtamaan oo aynu xoojinno oo aynu musuqmaasuqa iyo karaamadarrada ka saarno oo aynu kuwa la doorto dadku ay u noqdaan oo xaafad waliba la xisaabtami karto qofka ay dooratay iyo balaanka uu sameeyay iyo haddii bidmaayo loo xisaabinayo marka waxaan ku soo ururinayaa qorshaha guud kadib dowladnimada iyo horumarku wax weeyaan wax waa la iska dhaxlaa ciidamo waxbay ku dartaa qofba maalin meel cusub kama bilaabo inagu waxaynu ku talagelaynaa maadaama aynu chance haysano maanta inaynu wixii qorshayno oo aynu qorshe cusub oo 100 sanadood lagu dhaqmi karo inaynu dhigno kaana inaynu dhigno wixii aynu ka qaban karaynana si u kala horeeyaan iyo sidaynu u kala itaan leenahay inaynu samayno waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan dadkeena inaynu mobilize garayno wacyi gelino oo adduunka sida looga dhaqmo ee qashinka loo kala saaro ee haddii bidmaayo bacda la isaga ilaaliyo ee haddii bidmaayo ka meelaha loogu talagalay la dhigo inaynu ku korino salaam alaykum su-aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waxa weeyaan mudane xisbiyadiina siyaasaddu marka fool xumo dhexdooda ay ka dhacdo ama wax kala tirsataan sidee baa wax lisaan xisbiyadu siyaasaddu horta siyaasadda habkan dimuqraadiga ah waa la in la murmaa waxay ku jirtaa iska waa dimuqraadiyaddu dana la isku hayaa maxaa la yidhi mudax maan dad maan rag odhanaya waa mudax iyo afkood baa la yidhi marka arrimo waa la isku qabanayaa waxaana la isku qabanayaa qarankan korriinkiisa iyo muxuuha xukunkiisa iyo maamulkiisa arrimahaas markii la isqabto wixii sharciga ka baxsan dee sharcigaynu u daynaynaa oo cid maaragtay ku qadafta iyo ciddii wixii dee sharciga ka baxsan sharcigaa leh wixii siyaasadda iyo campaignka iyo loolanka iyo muranka marar مثلا wax dhaceen way jiraan waa la isu yimi berigii marka diiwaangelinta la sameeyay kulmiye iyo wadani tuulo meelaha sabaa wax ku dhaxmaray muran iyo isafgaran waa labada xisbiyaad arkaysay aan mid la fariisan karin inta la isu yimi oo salaadiin iyo uqaali cid walba la isu yimi oo la isu yimi bulshadiisu timi baa la wada hadlay oo leeyahay aynu waxa agta dhulka u dhigno marka waa laga wada hadlaa wixii ku xadgudub ah heerka habkan dimuqraadiga ay nabadgelyada dadkeena iyo duruufeena gaarka ah wixii ku xadguduba waa la isaga yimaada dadka baa noo deeynin iyo salaadiinta iyo culimada iyo markiiba waxa la yiraahdaa ukaadi way ka baxday way dhaaftay xadkii inta kale waa la isriixayaa wax xumaanina ma jirto Soomaaliland taasoo doorashay soo martay intaasoo doorashona bisayl badan bay keentaa dadka xisbiyaduna waa bislaadeen dadweynaheena waa bislaaday haddii xataa xisbiyadu murmaan wax dad ku dacaldabaya ma aha oo dadku waa garanayaan inay muxuu aysan xisbiyada tahay marka dhowr jeer oo wax dhaceen waa la isaga yimaha dadkana badana initiative kala hayo dadka dhexdhexaadiyo isu yimi oo meel baa lagu wada hadlayo waxa la sameeyay xisbiyada imka hadal waxa noo socda in meel haddii crisis dhaco xisbiyadu ay ku wada hadlaan oo iyagu gudahooda oo dad maaragtay mas'uulahooda xisbiyadu mas'uuliyad qaranka ka saarno inay rogaan ma ahayn in iyadana marka wax dhacaan xarka dad xidhiidha jira markii la yiraahdo arintaas way dhaaftay xadkeedii yaan la marin salaam alaykum aad iyo aad baad u mahadsan tahay Dr. Maxamed Ismaan Fadal kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Ismaan Fadal xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani oo aniga oo Maxamed Kayse ah ku waraystay barnaamijka kasmo iyo kaskaaga qaybtiisa qiimaynta siyaasiga